الوطن قد وجب حقا حقا كل فرد مننا يلزمنا فاعتصم بالصدقة صدقا صدقا كل مخلص لنا يقصدنا يا أيها الصوماليون يا أيها kulanti wanaagsan daawadayaal dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xusuusta keedka oo goorahan oo kale idinkaga yimaada raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. barnaamijka xusuusta keedka ayaynu ku eegnaa macluumaadada ku keedsan qolka keedka cajaladaha ee raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. kusoo dhawaada mar kale iyo xusuusta keedka. daawadayaal dhageystayaal barnaamijkeena xusuusta keedka ayaynu toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa gabi ahaantiisaba barnaamij loo qabtay radio Muqdisho sanadii 2010 barnaamijkaasi oo macluumaad weyn xambaarsan isla markaasna si gaar ah diiradda loogu saaray halkii ay kasoo bilowdeen beegsiga saxafiyiinta Soomaaliyeed iyadoo waliba barnaamijkaasi oo waqti badan uu geliyay saxafiga Diibaan Cabdi Cali aan barnaamijka gabi ahaantiisaba idinkugu soo gudbi doono. kusoo dhawaada mar kale iyo xusuusta keedka. sanadkii 2010 ayaa saxafiga Diibaan Cabdi Cali waxa uu baaris ku sameeyay halka ay kasoo bilowdeen beegsiga saxafiyiinta Soomaaliyeed iyadoo radio Muqdisho uu diyaariyay barnaamij dheer oo uu dhinacyo badan kaga eegayay beegsiga saxafiyiinta Soomaaliyeed. barnaamijkan oo xiiso gaar ah leh isla markaasna codad door xambaarsan ayaynu barnaamijyadeena soo socda xusuusta keedka gabi ahaantiisaba ku eegi doonaa toddobaadyada soo socda ee beedmo. haddaba qaybta koowaad ee toddobaadkani ayaan barnaamijkaasi idiin soo gudbi doonaa ee daawasho iyo dhageysi wacan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkan oo aanu kaga hadlayno tacadiyada lagula kaco saxaafadda iyo saxafiyiinta. barnaamijkan oo ka kooban laba qaybood waxaan qaybtiisa koowaad ku faaqidi doonaa qaabkii uu ku bilowday beegsiga saxafiyiinta oo la rumaysan yahay inuu soo bilowday sanadii 2007 iyo dilkii agaasimayaashii Honafriq, Capital Voice iyo Shabeelle iyo sidoo kale lugta kooxda shabaabku ay ku leedahay dilka wariyaasha. tan iyo markii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1991 waxaa dalku madaxa la galay dhibaato dhinac walba taabatay haba ugu badnaato dhinaca amniga iyo bani'aadminimada oo 20 sano kadibna weli aan waxba iska bedelin balse la oran karo wayba ka sii dartay. saxafiyiinta Soomaaliyeed oo u dhabar adeegay dhibaatooyinka dabada dheeraaday ee ka jira wadanka Soomaaliya una tafaxaytay in ay shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ku suganba u soo gudbiyaan xaqiiqooyinka ka jira wadankooda waxa lagula kacay tacadiyo heerkii ugu xumaa gaaray sanadihii u dambeeyay. tacadiyada lagula kaco saxafiyiintu way soo jireen tan iyo markii uu burburku dhacay waxaase wariyaashu dhibta ugu badan ee dhimashada dhaawaca afduubka iyo hanjabaadaha isugu jira la kulmayeen wixii ka dambeeyay sanadkii 2007 xilligaas oo ay dalka xoog ku soo galeen ciidamadii Ethiopia.
kooxaha hubaysan ee wata magacyada diineed sida maleeshiyada shabaab iyo tan kale ee isku magacowday xisbul islaam ayaa loo tiirinayaa tacadiyo badan oo ka dhan ah saxaafadda iyo saxafiyiinta waxaa kale oo xadgudubyo saxaafadda ka dhan ah iyaguna ku kacay dowladihii dalka soo maray barnaamijkan oo aanu ugu kuurgalayno gaboodfallada kooxaha xag jiraahi ay ku hayaan saxaafadda iyo saxafiyiinta waxaanu ku waraysan doonaa saxafiyiin u soo joogay dhacdooyin lagu laayay wariyaal badan qaar ka mid ahi waxa ay dalka uga baxeen sababo ammaankooda la xidhiidha kuwo kalena waxa ay u dhabar adeegeen dhibaatooyinka iyo duruufaha jira 11 bishii Agost 2007 waxaa maalin qura la wada dilay Allaha u naxariistay Mahad Axmed Cilmi oo ahaa agaasimihii idaacadda Capital Voice iyo Cali Iimaan Sharmaarke oo ka mid ahaa milkiilayaasha shirkadda warbaahinta Horn Africa. Mahad waxaa la toogtay xilli uu ku sii jeeday shaqadiisa subaxnimo Sabti ah 11 Agost 2007. dilka Mahad waxaa fuliyay dablay bastoolada ku hubaysan oo madaxa ka toogtay waxa uuna dhaawac culus oo soo gaaray ugu geeriyooday isbitaalka Madiina oo loola cararay. Cali Iimaan Sharmaarke ayaa isna lagu dilay miino jidka loo dhigay gaarigiisa markii uu ka soo laabtay aaska Mahad Axmed Cilmi. xasan sheekh axmed cadde maxamed abuukar axmed maada iyo cabdulaahi kulmiye cadow oo ay Mahad iyo Caliba wada shaqaynayeen ayaa ka sheekaynaya sidii maalinkaas wax u dhaceen. ha ku horeeyo xasan cadde oo isaga oo ku sugan magaalada London khadka telefoonka iigu waramay. aniga oo subaxdii markay tahay waliba laba guri iska soo horjeeda ayaan ku wada nooleen Mahad Axmed Cilmi Allah u naxariistay iyo aniga marka subax asagoo markii anigu ay shaqada ka soo tago oo aniga habeenkii ma shaqayn jiray maalintiina habeenkiina lama soo bixin jirin oo waa la cabsan jiray marka subaxdii aroortii la soo bixin jiray asna subaxdii aroortii ayuu wuxuu aadi jiray idaacadda oo barnaamijka Muqdisho ee maanta Capital Voice ka bixi jiray ayuu aadi jiray marka subaxdii marka qaarkood daaqada igu soo garaaci jiray subaxaas isagoo daaqada igu soo garaacay ila hadlay ayaan waxaan damcay inaan seexdo markaas baa telefoon ii soo dhacay wuxuu yiri warninkii nin isbitaalka Madiina jooga yiri ninkii Mahad ayaa meedkiisa halka yaala waxaa iridka ka soo gashay Seenab Abuukar oo ka mid ahayd wariyaasha idaacadda Horn Africa Seenab way ilmeynaysa markay soo galeysay waxaan weydiinay waxa ku dhacay markaas waxay noo sheegtay in Mahad Axmed Cilmi la dilay oo rag hubaysan ee bistoolada madaxa kala dhaceen xaaladeedu runtii markaas sida ahayd waxba kama sheegi karo hal mar ayaa shucuurteedii isbedeshay waxaan sameynay aqoon weyne todobada aroornimo la dilay xabadda waan maqlay ifka xalan ayaan gaariga uga degay ifka xalan markaan gaariga uga degay ee aan idaacadda wadadeeda aan afka saarayna cunug yaro ordaya iga hor yimid maxaa dhacay nin baa la dilay markii aan albaabka maxkamadda ifka xalan aan gaarayna waxaa albaabka Horn Africa way soo muuqdaan ka soo baxay gaariga idaacadda dhaawaca Mahad oo aan gaariga la saarin ayaan kor tagay halhal ayaan u istaagay Maxamed Abuukar oo runtii ka shaqeynaya idaacadda Horn Africa ayaan wacay aan iri muxuu ahay Maxamedow warkaas bay soo gaareen maxaa ka jiray Maxamed Abuukar waa ilmeynaya ma ila hadlinba anigoo markii meeshii u fadhiyay indhaheygana ilmo ay ka daayaan ayaa waxa telefoonka igu soo wacay dad badan oo kamid ahaa xasan sheekh axmed cadde oo si uu wax iga weydiiyo waxa dhacay maadaama uu igu tuhmay ragga markaasi aroor walba idaacaddu kala inaan kamid ahaa xasaacada runtii way igu adkaatay inaan u sheego wixii dhacay kaliya dareenkii markaas iga muuqday ayuu ka gartay wixii markaas ku maqaalaha ama maqalkiisa soo gaaray oo afkeyga ayaa soo mari waayay inaan ila Mahad ayaa la dilay runtii Mahad Allah u naxariisto waa la dilay sida markii dambe ay noo sheegeen dadkii la socday rag ayaa isagoo dhaxda uga jira labadooda ay gadaal dambe ka soo mareen dhowr xabadoodna madaxa kala dhaceen runtii dhaawacii loola cararayna isbitaalka nafaqo laguma gaarin oo sida ayuu ku geeriyooday dhicir oo maamulka lacagta idaacadda ahaa ayaa gaariga waday Yaxya Cali Faarax oo hadda jooga iyo aniga ayaa dhaawac soo saarnay gaariga
xabaddu madaxa ayay kaga taalay mahad aad ayuu u liitay cisbitaal madiina ayaan geynay cisbitaal madiina marka aan geynayna oo aan dhignay 10 daqiiqo ma joogin mahad waa u geeriyooday allah u naxariisto mahad waxay ahayd 11 Agost 2007 kahor inta aan mahad la dilin waxaa maalmo badan goobta dilku ka dhacay ku soo noqnoqonayay xasan xanafi xaaji oo ka tirsan kooxda al-shabaab marna u qaabilsanaan jiray dhinaca saxaafadda dhaqdhaqaaqa xanafi waxa shaki weyn uu ku beeray wariyaashii ka howlgalayay Horn Africa saxafiyiintu waxa ay si weyn u rumaysan yihiin in xasan xanafi xaaji oo bargaranayay wariyaasha badankood maadaama uu ka soo shaqeeyay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho uu isagu soo maleegay dilka Mahad Axmed Cilmi qarixii miino ee lagu dilay Cali Iimaan Sharmaarke iyo khaarijinta saxafiyiin badan oo uu ugu dambeeyay Allaha u naxariistay Sheekh Nuur Maxamed Abkay xasan xanafi xaaji waxa uu dhashay sanadkii 1983 qoyskiisa isaga oo kaliya ayaa ka jooga wadanka Soomaaliya labadiisa waalid waxa ay hadda ku nool yihiin wadanka Kenya halka qaar ka mid ah walaalihiina ay ku sugan yihiin Yurub xanafi ma laha taariikh waxbarasho sanadkii 2003 ayuu si tijaabo ah ugu biiray idaacadda Quraanka ee Muqdisho sidoo kale 2006 ayuu muddo dhowr bilood ah la shaqeeyay website-ka goobjoog.com ee laga maamulo magaalada London kadibna waxa uu ku faraq xirtay rag ka tirsan ururka al-shabaab gaar ahaan Aadan Xaashi Cayrow oo duqeyn Mareykan ku geystay lagu dilay 1 bishii May 2008 xilli uu ku sugnaa degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud xanafi waxa uu ka dambeeyay dilkii wariyaal badan oo magaalada Muqdisho lagu laayay wixii ka dambeeyay sanadkii 2007 cadaymo iyo markhaatiyo badan oo isxoojinaya ayaa waxa ay muujinayaan in xasan xanafi xaaji uu kaalin weyn ka ciyaaray dilkii Mahad Axmed Cilmi agaasimihii idaacadda Capital Voice iyo Cali Iimaan Sharmaarke oo madax ka ahaa Horn Africa xanafi isaga ayaa mahad u tilmaamay raggii dili lahaa sida ay ku warbixiyeen ila lagu kalsoonaan karo waxa uuna ku sugnaa goob aan sida uga fogeyn halka uu ka dhacay dilka marxuum Mahad Axmed Cilmi inta kuma ekaysan ee waxa uu raacay janaazadii Mahad isaga oo shabaab rag ka tirsan kula ballamay inay miina ku aasaan jidka si ay u khaarijiyaan Cali Iimaan Sharmaarke oo markii uu ka soo laabtay duugtii Mahad Axmed Cilmi lala qarxiyay gaarigii uu saarnaa halkaasna ku geeriyooday wariyaashii aaska tagay ayaa ka sheekaynaya dhaqdhaqaaqyadii shakiga galiyay ee xanafi uu ku kacayay intii hawsha duugta Mahad lagu guda jiray aniga iyo Xasan Cadde xasan Sheekh Axmed Cadde waxaan qaadanay baabuur yar oo taxi ah oo xasan uu wato ninka la yiraahdo xasan xanafi waxa uu naga raacay meesha la yiraahdo warshada sigaarka iyo tarqa isagoo gaari ma qabtay tuhun ah inuu arinta kullu yeelan karo ma qabin laakiin mar dambe ayay sheekadu iyo waxa dhanba isugu ka sawirayaan xilligaas ma qabin shakigaasna iguma jirin wariyaashu waxay noo sheegeen Horn Africa wadada looga leexdo Horn Africa oo albaabka Horn Africa gasha in ugu yaraan muddo 7 ah in wariyaasha qaarkood midba mid ay meesha u arkeen xataa dhowr su'aalood weydiiyeen oo yiraahdeen xasan oo maxaa halkan ka soo galay isla markaana uusan si toos ugu jawaabin anagu saxaafadan u naqaanay idaacadda Quraan Kariimka ayuu ka shaqeyn jiray inkastoo dhowr howlgal oo xataa mar ciidamada Itoobiyaanka ay yimaadeen meesha la yiraahdo Buur Hakaba oo leega xilligii maxkamadaha Aadan Cayrow ayuu kaamirada u waday oo si gaar u la shaqeynayay anigu waxyaabaha soo dhanba waxaan u haystay wax idaacadda u dirtay oo shaqo ahayd laakiin markii dambe ayay bahasho isfurfurtay oo aan ogaaday inuu yahay nin horay saxaafadda mar lug ugu yeeshay kadibna cadaawadda wariyaasha iyo dilkooda iyo dhibaatayntooda shabaab inuu mas'uul uga yahay aan ogaaday hanjabaadaha iyo dilalka dareenka dadka ka wada muuqday asaga ka muuqan oo asaga telefoon iyo waxba ku hadlayay telefoonadaasi laga soo bilaabay isbitaalka ilaa qabuuraha la yimaado mid socotay ahayd حتى مساجد كشعر السوفي مركي جناسير ودكاناي تذك جناسي دكانايين سقوا ما وسن دكانين حبالها مركي للجوجي تذك حبوا حكوا مشغول صنايين أسكي سقوا ما وسن كغيب قليلين أو تلفون كأيوره هستي نهتي نك هذا ورياشي ونفريق كم إذا صامري أيا حل جالس تاجنا وحنا نيجي أموجي سيدا شكي وقبل نكاسي حسن في اللي رادو waxaana u sheegay ninkaasi qorshaha
qorshahaasi dilka inuu wax ka watay sababta waxay tahay dareenka naga wada muuqda kama muuqan sidaan kuu sheegaba telefoon ayuu in ka badan 5 saacadood haystay oo ku hadlay runtiina sidaan maleyn way noqotay xataa saaxiibkii waxa uu sheegay in cabsi weyn ka qabo qorshe kale inuu maleeyahay ninkaas waayo xilligaas aan la hadlaayo waxa wariyaashii la hadlayay Allah naxariis cali imaan sharmaake oo u sheegay in waxaan ay tahay qorshe la doonay in saxafiyiinta lagu aamusiyo inay tahay inaan macnaha cabsi laga muujin oo loo dhabar adeego markii ay dhamaatayna oo la soo kala tagay qarxan ayaa dhacay taasina markii sidee wax u dhaceen loo fiiriyo waa ninka hoosha dhan rahagay wariyaashii kooxda shabaab dilkooda fulisay waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee agaasimihii idaacadda Honafriik Saciid Tahliil Axmed oo lagu dilay gudaha suuqa Bakaaraha 4tii bishii February isagoo ku sii socday shir beenoobay oo shabaabku ay saxaafadda isugu yeereen duhurnimo February 4 ahayd 2009 ayuu Xasan Xanafi Xaaji oo ahaa madaxa xiriirka saxaafadda ee ururka shabaab ugu yeeray agaasimayaasha idaacadaha Muqdisho inay ka soo qayb galaan shir muhiim lagu tilmaamay oo ay la yeeshaan hogaamiyayaal ka tirsan ururka shabaab si cad looma qeexin waxa shirkaasi uu ku saabsanaa iyo halka uu ka dhacayo Allah u naxariistee Saciid Tahliil Axmed waxa uu ka mid ahaa dhowr agaasime oo goostay in ay shirkaasi tagaan inkastoo uu dareemayay khatar badan inay jirto qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda Honafriik ayuu Saciid Tahliil ka codsaday inay u raacaan kulanka shabaabku ugu yeereen laakiin badankood way ka cudur daarteen iyaga oo dareensanaa in kooxda shabaabku ay dabin maleegayaan maxamed abuukar maada oo xilligaas ahaa tifatiraha idaacadda Honafriik waxa uu ka cudur daartay inuu Saciid Tahliil u raaco shirka shabaabku ku baaqeen waxa uu marmarsiyo ka dhigtay in warkii idaacaddu soo dhow yahay waxa uu saqabay tuhun Saciid wuxuu ii sheegay markii aan u tagay in ay noo yeereen anigii isagaba mas'uuliyiinta wuxuu ku sheegay kooxda shabaab waxaan weydiiyay waxay naga rabaan labadeen oo aan muhiimka ugu nahay inaan wada tagno runtii ma garanayo yiri laakiin labadeen ayaan codsadeen oo yiri markii arintaasi oo Saciid ii sheegay way ugu adkaatay inaan go'aankaasi ku raaco waxaana anigoo runtii diidan in cabsida iga muuqato uu dareemo aan uga cudur daartay inaan aadi karin sababo la xiriira shaqada idaacadda oo markaasi warkii duhurnimo oo nagu soo fool lahaa waxaan yiri labadeena oo shaqada ka wada tagno dhib ay idaacadda ku noqonaysaa adiga Saciid iyo qof kale hadii aad mas'uuliyiinta kala wada karto wado dareen cabsiyeed ay ugu jiray runtii Cabdullaahi ayuu la hadlay Cabdullaahi hadalkiisii waxa ka horeeyay rag kale mas'uuliyiinta ayuu runtii ka codsaday inay u raacaan meesha iyana way uga cudur daarteen xitaa waxay kula taliyeen in Saciid uusan tagin meeshaasi wuxuu markii aan kasii tagay Saciid ii sheegay inuu Cabdullaahi kulmiye la hadlayo si uu Cabdullaahi ii sheeg oo uga codsaday inuu u raaco meesha shirka telefoonka ayuu kula xiriiray xilliga Saciid wuxuu ku kaftamay inuu Cabdullaahi balka duubo codka isagoo u maleynay inuu Cabdullaahi baqayo oo san ku raacin oo baqan doono codkan ayuu ka duubay oo ah inuu Cabdullaahi xiriir la sameeyay Cabdullaahina runtii wuxuu weydiiyay in aniga ku jira dadka baxayo Saciidna wuxuu yiri Maxamed oo ku maqlay laakiin ma raacayo sidaas ay isagii Cabdullaahi ku ballameen oo ay idaacadda Shabeelle oo markaas madasho ahayd dacwada maxay tahay Cabdullaahi والله حواني أريد تجينا نشر ديار جورجان جوجا أنت أيانا خبر الشباب أو تجينا حشاون ما تروح لبرازيل ورجع وأول عدران كل وجه وساعنا مركب ديار جورجان نحن أبو كرنا أي سامح شهر ولا سبعة أي codkan hadda aad haysid telefoonka ah xilligaas aniga ma duubin Saciida iga duubay markaas waxa la joogay Maxamed Abuukar oo hadda raadi Muqdisho ka shaqeeya maada iyo qaar kamid ah shaqaale marka Shabeelle markaan imaanay Xasan Xanafi markii uu na arkayba waa kan Saciid waa yimid bes nakeena waan baxnay wadada Shabeelle toos dhinaca Carwo idka ayaan u raacnay markii aan xawaalada Habshiil dhaafnay oo qaran aan ku sii dhownahay ayaa telefoon u soo dhacay dib noo soo celiyay yiri xoogaa telefoonku waxa u soo dhacay Xasan
dib markaan usoo laabanay waddo yaroo meel luuqa ah oo dhinaca wardhiigley xarir yaalla ku beegan xerta shii-aadan dheere oo cidla ah oo dadkina ay ka wada qaxeen ayuu nagu leeyahay marka aniga xasanka ayaan la socday oo iyo ninkan yuuniska ah oo markaas aanan aqoonin markii aan waddadii cabaar ku soconnay ayaan gadaasheeda xabad ka maqlay waan soo jeestay siciidoo sii dhacaya idaacadda Horn Afrique waxaa saarnaa astaanta warka duhurnimo markii la soo gaarsiiyay geerida Allaha u naxariistay Saciid Tahliil Axmed oo daqiiqada uun ka sii maqnaa runtii sidaan hore ku sheegay aniga shaqada idaacadda ayaan ku mashquulsanaa warkii ayaa noo fuulay markii ay 2:00 duhurnimo waxa ay soo wacay Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo isaguna markaas ah tafsirihii idaacaddii Shabeelle telefoonkeygu soo wacay wuxuu ii sheegay in Saciid la dilay runtii wax xaaladeeda markaas ay ahayd ma garanayn anigii hal mar ayaan isbedelay wax aan sameeyay ayaa aqoon waayey kaliya markaas ag joogay Maxamed Xamuud Odawaal la yiraahdo oo farcada lagu naanaysa ayaa ila yaab maxaa kugu dhacay si aan ugu sheego xataa waa garan waayey waxa arinta ii sheegay aniga markii la dilay xabadana waa maqlay markaa dahabshiil agteeda ayaa lagu dilay bakaaraha gudihiisa waxa ii sheegay maxaa uu kar oo xafiiska ugu jiray qaybtii warqabadka ayaa Irniyo Al-Cadaala soo wacay oo Shabeelle ka tirsan wuxuu leeyahay waxa la dilay Saciid Tahliil muwaalan yahay ninkan warka uu sheegay muxuu yahay uu yiri markaas waxaan ku iri muwaalne way noqon kartaa 5 daqiiqo ka hor intaan warkaas aan leenahay ka hor Saciid Tahliil jarjarada telnet bakaaraha ku dhaxtaala ayuu telefoon kula hadlayo qoslay wuxuu la hadlayay Cabdullaah Kulmay waxa xasuustaa wuxuu leeyahay nimankii shabaabka ayaa maanta noo wacay waxay naga rabaan ma naqaanay niwna kan Cabdullaah Kulmay oo mise waa cabsanaysa qosol iyo wuxuu isku daray hadalka kooxda shabaab waa ay beenisay inay ka dambeysay dilka Saciid Tahliil Axmed iyadoo dilkiisana ku eedeysay wax ay ugu yeertay cadawga Ilaahay laakiin Sheekh Cabdiraxiin Ciise Cadow oo xilligaasi ahaa afayeenka midowgii maxaakimta islaamiga ayaa waxa uu isweydiinayaa waxa cadawgaasi u dilay Saciid Tahliil oo kaliya ama ragga shabaabka ka tirsan ee wariyaasha la socday ay uga difaaci waayeen cadawga dilaya rag kamidaha la socda shabaab oo Xasan Xariif oo kamid yahay dadkii dilay rag la socday waxa ma gaarsiin cadawgu aad dilay Cali Maxmed Shir cadawgu waxa la rabaa inuu dilo Xasan Xariif ma ahan inuu Saciid dilo hal Saciid maxaa lagu dilaa cadaawad iyo ka gali hadii cadaw oo yihiin dadkii dilay Xasan Xariif rag la socda waa hubaysnaayeen maxay uga celin waayeen cadawga dilay ayaga u yeereen ayaga oo la socda maxay uga celin waayeen anu waxa markaas qabay shabaab inay dileen Saciid Tahliil ma cadda sababta loo dilay Saciid Tahliil Axmed waxaa rag badan oo ay wada shaqeynayeen dilkiisa u aaneynayaan kaalintii uu ku lahaa olole idaacadaha Muqdisho wadeen oo ahaa inay nabadda baahiyaan mar haddii ay dalka isaga baxeen ciidamadii Ethiopia Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo xilligaas fatira ka ahaa reediyowga Shabeelle lana socday Saciid Tahliil Axmed markii la dilayay ayaa isna qaba in dilkiisa uu salka ku hayay doorkii uu ku lahaa abaabulkii idaacadaha ee ahaa in ay nabadda dadka u soo tabiyaan si aan door u qaadano shirara jiray dhowr mar aan isugu nimid oo qaar xarumaha idaacadda lagu qabtay qaarna hoteelo lagu qabtay waxaan isla goosanay qodobo ilaa 4 qodob hadda ma wada xusuustaa isla go'aansanay si aan nabad uga qayb qaadano waxaan ka xusuustaa inay kamid ahayd in colaadda la boonboonin iyo in aan la soo saarin figuriska amba shakhsiyaadka raba in ay colaadda abuuraan dad badan oo markaas waxa jiray ku soo caanbixi jiray dagaalada inay dagaalada ku soo caanbaxaan jeclay inaan markaa arrimahaas joojino ayaa kamid ahayd waxyaabay ka soo baxay waxa kale oo jirtay yacni qaar kamid ah shakhsiyaadkii markaas dagaalka u ololeyn jiray waxay wici jireen Saciid qaarkood wuxuu ka diiday inay hadlaan dadka aan xusuusto waxa kamid Axmed Cali Gees oo runtii Saciid u hanjabay oo inuu u hanjabay anaga aan la soconay Xasan Xanafi iyo Yuunus sidoo kale Horn Afrique xiriirka u jiraan Cabdiraxmaan waxa uu intaas ku daray in Saciid dhowr jeer u sheegay in hawshoodan samakataliska ah rag kamid ah ay u dhiman karaan Saciid marka waxaan xusuustaa marar badan wuxuu ku celceliyay waxa dad naga mid ah u dhiman doona arintan marka dadkaas haday u dhintaan waa inaan ogolaano inay dad u dhintaan kadibna waa inaan mabdii ka haran oo aan wadnaa mabdii si loo gaaro waliba kulinkii noogu dambeeyay oo xarunta idaacadda Shabeelle aan ku wada qaadanay Maxamed Abuukar waa joogay markaas Mukhtaar Helaaba joogay Maxamed Cabdullaahi Xaajiyan la joogay tiimka intaan ka xusuusto sidaas uu yiri aad ugu adadkaa in arintaas ay fusho go'aankaas uu fulo Xasan Sheekh Axmed Cadde oo Saciid ay wada hadleen maalmo ka hor intii aan la dilin ayaa isna iiga warbixiyay dareenkii Saciid qabay ka hor dilkiisa markii la dilayay habeen ka hor ayaa soo wacay
waxaana ku yidhi niyow Saciidow ii waran maanta maaragtay weliba waxay wadeen olole ballaaran oo ay doonayaan inay si madax bannaan idaacadaha ugu shaqeeyaan maadaama idaacadihii la soo wacayo laleeyahay maaragtay waa inaad barnaamijkaas samaysaan oo inaad barnaamijkaas qabataan marka Saciid wuxuu yidhi anigu waan cabsanayaa cabsidaan haysana waxay tahay in maaragtay barnaamijkan aan wadno oo wari agaasimayaashii idaacaduhu ay isu tageen ayaan ka cabsanaynaa in la ku dilo runtiina waxa uu yidhi niyow meeshaan haddaad maqato Saciid Tahliil dhintay habeensanin xasanow sidoo kale Cabdulaahi Kulmiye Cadow ayaa rumaysan in kooxda shabaab ay ka dambeysay dilka Saciid Tahliil Axmed isagoo aragtidiisana ku darsanaya waxa uu rumaysan yahay inuu sababsaday waxaan aaminsanahay inay shabaab Saciid dilkiisa ayaga ka dambeeyaan ayagaana balamiye ayagaan la socno bakaara ciidan ayaga ahayn oo hubaysan ma joogin marka fariin annaga dhanna loo diray ay noqon kartaa waxay noqon kartaa barnaamijkii la isla waday ee dhinaca saxaafadda ah oo sidee saxaafadda aan gacanteena u soo gelin karnaa gacanteena waxaan u soo gelin karnaa in ay noqdaan kuwa cabsada tasciid cidna dambi kama gelin ma ahayn hogaamiye kooxeed ma ahayn dagaal ooge maamul idaacadeedu ahaa shabaab weliba si aad u tixgelin jira oo mar alla marka ay soo wacaan waxay rabaan u qaban jiray xilligaas ay dilayaan ka hor waxaa jirtay mar aan xiriir la sameyn Al-Mansuur iyo ninka la yiraahdo Xasan Yacquub oo afayeenka Kismaayo ahaa iyo Al-Mansuur oo ahaa afayeenka shabaab toddobaad ka horreeyay ayaan xiriir la sameynay oo aan ka codsanay in ay dood ka qayb qaataan waxa doodaas aan markii hore la hadalnay Cabdiraxiin Ciise Cadow oo naga ogolaaday qodob ayaan loo soo bandhigay dhowr qodobadas waxaa kamid ahay مثلا in la joojiyo shirarka jaraa'id oo khadka taleefanada lagu qabanayo birigaas waxa dhacaysay feenada maxkamadaha iyo shabaab iyo hebel qofku markuu rabo inuu hadlo dhowr xabo isku xiriirsaha wuxuu la hadlayaa idaacadaha in la joojiyo maadaama socodka oo yeera oo communicationka oo dhib ahaa halka Itoobiya waa baxday xoraal leeyahay qofku wuxuu awoodi karaa meel banaan inuu yimaado oo fadhiisto wariyaasha wacdo shajada oo waxay dawaa joojinay waxay ka hadlayeen barnaamijka Itoobiya markay baxday ka bacd in nabadda laga shaqeeyo midnimada laga shaqeeyo dadku si soo noqon lahaayeen laga shaqeeyo ummadda in markaas loo ifiyo nabad iyo kalsooni waxa kamid ahaa muxaadaraad waxa jira birigaas aad u soconayay oo ka dhici jiray masaajidda farbadan magaalada ku yaalo idaacadaha si toos ay u timinayeen maamulka idaacadaha waxay codsadeen waxay yiraahdeen qofkii raba in wax loo tibiyo waxa soo duubiyo wala keena idaacadu waxay u arkaan inay munaasib u yihiin bulshada markaas aan gudbinaynaa xasan xanafi xaaji oo wariyaasha u kaxeeyay shirka shirqoolka isu bedelay ee shabaabka ku baaqay ayaa waxa uu Saciid Tahliil Axmed dilkiisa kadib telefoonka kula hadlay dhowr saxafi oo goobta naftooda kala baxsaday oo uu u sheegay inay meydka Saciid ka qaadaan goobta halka qaar kalena uu u muujiyay sida uu uga xun yahay waxa dhacay dadkii xasan xanafi uu la soo xiriiray waxa kamid ahaa Allah u naxariistay Mukhtaar Maxamed Hiraabe agaasimihii idaacadda Shabeelle ee la dilay oo la rumaysan yahay inuu isna ku baxay gacanta kooxda shabaab haddaba aan wada dhageysano codka Allah u naxariistay Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo ka hadlaya wixii xanafi uu ku yiri markii uu la soo hadlay iyo cidda isagu uu rumaysan yahay in ay dilka Saciid Tahliil ka dambayso xasan xanafi ay tawaan الله محرسي راسنا هذه لا غلطة كمان حريسي لا يتعرف كمان وانا ليس الله محرسنا ما بعنا لا وانا محرسنا لكن من كل جامعة ما توضع أي وحشة khaarijintii Saciid Tahliil Axmed kadib Xasan Xanafi Xaaji waxa lagu bedelay nin ku shaqeeya magaca Yunis laakiin aynaan helin cid inoo xaqiijisa magaciisa dhabta ah kaas oo halkii ka sii waday handadaadaha saxafiyiinta iyo saxaafadda daawadayaal dhegeystayaal waan filayaa inaad ka hesheen barnaamijkaasi beegsiga saxafiyiinta halkii uu kasoo bilowday ee sanadii 2010 uu diyaariyey Liibaan Cabdi Cali oo ka howlgeli jiray raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxay noo soo socdaa qeybo kale oo aad u xiiso badan todobaadada soo socda hadduu ee barnaamij ka noqdo taasi aad iyo kulanti dambe intaynu barnaamijka mid lamid ah dib u kulmi doono waxaan anagoo isku duwan oo bahda barnaamijka idin leenahay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh